Dad badan waxay mar waliba isweydiiyaan sida ay noloshooda guul fiican ugu keeni lahaayeen, sida ay uga gudbi lahaayeen caqabadaha ka soo wajaha nolosha, iyo sida ay u masixi lahaayeen khaladaadka ay galeen. Haddaba, intaa oo dhan waxaa xal u noqon kara u toobadkeenida iyo talo saarashada Allah Subxaanahu wa Tacaala. Maalinta Ciidda waa maalin ka mid ah maalmaha ugu farxadda badan ee ay Muslimiintu leeyihiin. Haddaba noqo qof maalintaasi dhexgala bulshada, la wadaaga farxadda, dhiirrigeliya una soo jeediya talooyin wax ku ool ah. Mararka qaar, waanada iyo talooyinka bulshada loo jeediyo waxaa laga yaabaa inay dhiirrigeliso qalbiyo niyad jabsanaa. Waxaa laga yaabaa inay baabi'iso xumaan taasoo ku jirtay qalbiyada dadka. Haddaba, aanu badino oo aan ku dadaalno mar waliba sida aan u waanin lahayn una dhiirrigelin lahayn bulshada guud ahaan. Waqtigaaga oo aad wanaag kaga faa'iidaysataa waxay u dhigantaa noloshaada oo idil oo aad wanaag kaga faa'iidaysatay. Waqtiyadaada wacan oo aad ka faa'iidaysan weydaa waxay u dhigantaa noloshaada oo aad dayacday.